cadeymaha oo waxaa la yiri ushi walaalka ku dhacday gumadkeedna adoo kugu yaala qoladan markii hore indha nooma lahayn ilaa haatan indhay noo yeesheen waxaan laga yaabaa marba midkay rabaan inay u tagaan maxamed ma ku jiraa ilaahay amarkiisa markaas soo afurnay aniga iyo burhaan iyo cabdiraxmaan oo isoorahan markii aan si sax ugu laabanay janalka waxaa dhacdayba in dad ay ku shaqaysanooyinba anigu isma waalin oo waxaan sameeyey inaan la sameeyo xiriir qolada YouTube-ka waxyaabaha aan la yaabay oo markii aan fiirinayay oo jadwalka aan marba dhinac u cararayay waxyaabaha aan la yaabay waxa kamid ah janalka adna janal aan aqiinay ayaa 35,000 oo live u fiirsanayso dadkan waxay ku jabsadeen YouTube-keena backup codes coded backup oo ay dalbadeen ayay ku jabsadeen ma sahlana in la jabsado adna channel misuu adka aad bay u adkayd in la jabsado adna channel iyo YouTube-badeenaba aad bay u adagtahay in la jabsado laakiin dadka jabsaday midaan sheega saa doonta u adkay sidaa doonta sameey wax walba ku xiro haddii qoladan ay kusoo maagto waxa ka celin kartid ma sababtoo ah qoladan ma waa qolal la celin karo waa dad dawlado weerarayo qof dawlado weerarayo qofna ma celin karo waxa kaliya idin weydiisanay wuxuu yahay inaad noo soo duceysaan insha Allah haddii uu khayr noo yahay inuu ilaahay noo soo celiyo haddii uu shar noo yahayna ilaahay naga tirtiro naga madoobeeyo insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الملل بدنيا الكجوبتين وحنا إذن الله هاي رمضان مبارك مركله رمضان كان كيسة كلا الله نوجر سي وش يا برواقة اسم الله هين أنا أصلا مهلا يو أيات مر هرتي سا دعوة يشينا أو لا لسان لكن وحول بوخدر وين العان marka horena waxaan ilaahay ku siiyay haatana ilaahay sida uu doono bay ku dhacayaan laakiin hadii musiibo ay dhacdayna ilaahay oo ina ay raajicuun ay leeyahay waxa dhacday in la jabsaday janalkii weynaa ee familka adna channel waxa daawateen muuqaal adna heen la soo geliyay oo arrinka ku saabsanaa dad badan oo ila soo hadlaya waxay iga dalbadeen cid jabsatay sida sheekada ay u dhacday inaan idin soo gudbiyo waan qaatay taladaas horta adna channel bisha barakeysan ee Ramadaan 3 mawduuc ayaa loo diyaariyay 3 mawduuc loo diyaariyay waxa uu bilaabanayay midkiisa ugu horeeya caaw oo la soo saaray oo la geliyay title-ka lagu qoray sawirka la saaray بس time كي لوجو ترى قال إلا دايو أنت أنا لجارين يا واحد علي إن أكونك أنت ميل وكجريدن هالمر اللي جوه الواي تصالح عن موبايلك أدنى وكجري موبايلد وكجري لابتوب وكجري آيباد وكجري ماك بوك وكجري أنتي با هالمر اللي جوه الواي مركز لجربه halka laptop aan isticmaalo oo HP markii laga reebay inta kale waa laga waayay markii saa loo waayay wala soo wacay maxamed ma ku jira ilaahay amarkiisa markaas soo afurnay aniga iyo burhaan iyo cabdiraxmaan oo isoorahan marka adla waxay tiri YouTube studio-gay kuma jiro mobile اوكي كالسا ادنى channel بس نلعب فريست لابتوبي غفور وفيري لابتوب وكجرها markaas dana waxa tagay gmail ka furay laptopgi uu ku jira marka kadib waxaan sameeyay mobilka qalbo uu ka baxay aan leeyahay isku diray mar labaad gashaan ku yeelay mar labaad ay gishata marka waxa jirta in telefoonada social account-nada aqabno idil oo verified kiisa ku xiran yahay hal meel mar walba qof uu rabo inuu galo ama uu ka baxo wuxuu ku qasban yahay in loo ogolaado inuu galo ayuu ku qasban yahay sababtoo ah security aad baa loo adkeeyay
marka haddii aan isku day mobilka inaan ka galo passwordki waa la bedeshtay waa isku day waa la bedeshtay daqiiqad ma ka soo wareeganin waxaan tagnay janalkii oo magacii laga bedelay magaca laga bedelay fiidiyoyaasha laakiin sideedii ugu jireen daqiiqada kadib fiidiyoyaasha waxaa loo bixiyey si halkabood ayaa private loo wada dhahay laptopka ugu jira anigu waa arkooga so waxaan isku dayay markaas inaan ka gaarsiiyo oo aan passwordka bedelo markaan galaybo waxaa ii soo baxday in passwordkii recovery u saarnaa laga qaaday two step verificationkii laga qaaday wixii oo dhan laga qaaday emailka ku xirnaa xataa laga tuuray oo emailka lagu xiray wixii aad samaysid wuxuu ku leeyahay verificationka wuxuu ku soo saaray hal email oo ajnabi ah oo ku leeyahay emailkaas waa in lambarkaasi code u dhacaa kadib aa gashaa markaasay tala caddaatay markii aan si sax ugu laabanay janalka waxaa dhacdayba in dad ay ku shaqaysanayiinba janalka admi janal in lagu shaqaysanayo oo ay dad ku shaqaysanayiin aa dhaca isla markii anigu isma waalin oo waxaan sameeyey inaan la sameeyo xiriir qolada YouTube-ka iyo Google account inaan la sameeyo waxaan kala sameeyey Gmail anigu ii khaas ah laakiin isla markii waxay dhaheen waxa ka hadlaysid waa inaan meesha ka soo hadashaa marka wuu ii furnaa Gmailkii isla markii ku cararay qaybta supportiga tagay live chat-kii kala hadlay waxaan ku yiri sidaana jirto waa la jabsaday YouTube-keena seel idinkaga jabsaday verification money soo dhacmaya dadkan waxay ku jabsadeen YouTube-keena backup codes backup oo ay dalbadeen ayay ku jabsadeen ma sahlana in la jabsado admin channel mise wuu adkaa aad bay u adkayd in la jabsado admin channel iyo YouTube-badeenaba aad bay u adagtahay in la jabsado laakiin dadka jabsaday ayaa waxay yihiin dadka bangiyada adduunka dhaca maalin horeedna aan maqlayay in ruushka iyagu ay haysteen oo systemkii ay galeenba markaan tagnay waxay noo caddaatay inay dadku ahayn Afrikaan inaysan ahayn Hindi inaysan wadamadan kala ahaynba oo dad cadaan yihiin isla markiina waxaa laga bilaabay YouTube-ka in laga soo daayo casharo ku saabsan forex-ka iyo mid cyber online yaa la yiraahdo iyo waxaas ayaa isla markii laga bilaabay in laga soo daayo waxyaabaha aan la yaabay oo markii aan fiirinayay oo jadwalka aan marba dhinac u cararayay waxyaabaha aan la yaabay waxa kamid ah janalka adna janal aan aqiinay ayaa 35,000 oo live u fiirsanayso waxay noqotay wax maskaxdeeda ka weyn 35,000 oo live ah ayaa loo fiirsanoowa hal saacna kuma jiraan dadkaas live casharay ku bixinayaan markaan tixraac u sii sameeyay waxaan ogaaday casharadaas iyo waxaas ay bixinayaan inuu YouTube-ka ogoleenba oo horay dad badan oo noocan saan oo kale looga jabsaday 24 hours gudihiisna looga xiray marka dadkan badanaa waxay wax jabsadaan oo wax ay sidaan oo kale sameeyaan maalmaha Axadda weekendiga oo isleeyihiin degdeg manila soo gaaray dadkii oo dhan way mashquulsan yihiin nidaamka anaga wax noo laga jabsaday nidaam lamida waxaa looga jabsan jiray in muddo dadka cadaanka celebrity-ga waaweyn ayaa looga jabsan jiray waa kana muuqaal kamida dadka caanka ka cabaadayay systemka wixii laga jabsanaya intaasi oo dadaalka aad u wadid qolooyinka inaad la xiriirtid ayaa lagu shaqaysanaya waxaa laga yaabaa caawa dadkaas inay 5 bilyan 10 bilyan ay sameysteen oo lacaga because hoola aan loo ogolan ay meesha ka dhaxwadeen kaligeena ma ahan dad badan oo cadaan ah ayaa horay waxaan ugu dhacay laakiin waxaan dabcan sidaan dareemayo waa Soomaali markii ugu horeysay oo falkan ay dhacdo yaana loo malaynin in haddii mar Soomaali la soo galay waxaa suuragal ah dadka caanka ah qaasatan kuwa subscribe-ka badan wata in ay sidaan oo kale u weeraraan sababtoo ah eebelnimo aqoon anagu shaashadooda ma noo saarneen laakiin maanta ay noo bilaabatay in shaashada qolooyinkan ay Soomaalidu sida macnaha u soo fiiriyaan si xoolahooda ay ugu shaqeystaan
إن شاء الله قفل بو ضدك عنك سبسكرايب كبدنا هايستا waxaan u soo jeedinayaa inay adkeeyaan walow horta midaan sheega saa doonto u adkeey sida doonto sameey wax walba ku xiro hadii qoladan ay ku soo maagto waxa ka celin kartid ma qoladan hadii ku soo maagto waxba ma ka celin kartid sababtoo qoladan ma aha qolal la celin karo oo dad dawlado weeraray qof dawlado weeraray qofna ma celin karo laakiin waxaan la yaabanahay adna channel oo 600 haatan ku sii socday waxa ay ka soo dooneen iyagoo arkayo afrikaana kale cadaana kale hindi oo malaayiin wata ma fahmin qorshaas aniga qorshaas ma almuhiim qoladii waxaan la jaatin gareeyay oo supportiga Google si fiican ula hadlay ayaga marka hal jaanis ay siiyeen halkaas jaanisna wuxuu ay siiyeen in ay laptopgayga ka tuurin laptopgayga kama tuurin gmail kana uu iga furnaa youtube kana uu iga furnaa marka aan sheekada dhex noo mareysay ayaa waxa dhacday inay ma arkan oo ay naga saaraan gmail-ka laptopgayga way ka remove gareeyeen isla markaa u diro Google supportiga markaan wax u diraba gaduud oo isoo noqon sababtoo ah gmail-ka adiga ma isticmaalayso ma haysatidba dhibkaas dhacay waxaan idin la wadaagi doonaa inta sheekadaas ay socotay screenshotyo iyo sawiro aan qaaday hadduu ilaahay yiraahdo haddii aan u soo laabto mucjisadii dhacday adna aaday qof dadaalayo intaasoo sano kusoo tir iyo tacab beelay rabtay in meel wanaagsan ay ka gaarto oo wixii ku dhacay waxa waaye ilmada ma cishan karto ilmada ma cishan karto adno بر عليا أنا علوي المهم لكن واحد وجبنا وأنا أنكسر برسيوه أها كيس كي سومال لنا هرجيسة كبعض وحكو إيري ولا لا فيه شلي سريع هيد ما أنت أنا سريع يوتيوب يراك على ليسا ولح بقولوا كون سبسكرايبات أها هرجيس السوق هو ينافيه قف أيا جيفتي oo dukaankiisa oo barkay ugu yaraato malaayiin dollar riyaala oo ka jiifto subaxdii markuu soo kacayna waxa u mahay xaafadan suuqdan ayaa gubtay oo basbeelay soo wax walba way dhici karaan adna eragaas markii aan u sheegay bay aamustay inta ka horeysay aamusnaan ma lahayn marka dhibkaas dhacay waxaan rabaa إن شاء الله إن الذين شيء إن دجال علوس عن كل جرو خلدا هدو إلهي يرادنا إذا كنا نوسو دعية هدو إلهي يرادو عن كل جوينا إن عن سور عليه إن شاء الله مركي قلدي عن الذين نبستير شكله مركي قلدي سيدي عن سكولها هذا لنا وحي يقول يراده حديد وحيابا عداني وحبا يقول وان كسس بن جريننا وان كحرنا يرادين قلداس adiguna wax baan ku siinayna oo aan rabeyna inta ka sii hadlo markii qoladaas kiiskooda uu dhamaado aan ka wareejino janaalka gacantooda kadib ayaan wada hadlaynaa marka hadiiba inta ay dhacday alxamdulillah ay ahayd jaaniskaas yar aan helay waxa kale oo dhacday in markii ay ka soo wareegtay markaan wada hadlaynay hal saac oo kale markii ka soo wareegtay in janaalkii laga xiray ayagana waa laga xiray laakiin cadeynta noo soo baxday ayaa wuxuu ahaa community guideline ayaa ku dhacay channelka waa kana sida aad arkaysaan qoraalkaas ayaa loo soo saaray macnaheedu waxay tahay channelku waxay ku isticmaaleen dadkaas wax qaldan ayay ku isticmaaleen laakiin intii taas aysan u soo bixin waxa ka horeeyay dacwadeena waxa ilaahay mahadiis horta in channelkii laga xiray oo channelkii aysan dhibaatooyin badan u sii geysan markii ugu dambeysay ogaana fiidiyoyaasha oo idil waxa uu ahaa private sababtoo ah koow hal u dhaafay ka dhigeen sida dadka ay u imaadaan markii dambana kulli private ay ka wada dhigeen magacana investment waxay ku dareen oo kaliya waa qolooyinkan lacagaha khalad sarfi waxyaabo la mid iyo kuwa shaqeeyaan ku daalin wax kaliya idin weydiisanay wuxuu yahay inaad noo soo duceysaan insha Allah haddii uu khayr noo yahay inuu ilaahay noo soo celiyo haddii uu shar noo yahayna ilaahay naga tirtiro naga madoobay insha Allah
wax kaloon idin dhaho ma hayo oo intaa ayaan jeclaystay inaan idin sheego idinla wadaago maadaama adna aysan si waadixa idinkugu sheekeen. waxaan rabaa halkan inaan fariin ugu diro youtuberska Soomaaliyeed. waxaa la yiri ushi walaalka ku dhacdo gumadkeedna adoo kugu yaala. qoladan markii hore indha normal ah ilaa ka haatan indhay noo yeesheen, waxaan laga yaabaa marba midkay rabaan inay u tagaan. sidaa daraadeed walow dadkan aan waxba looga cunayn in janalada la adkeeyo, akoonada la adkeeyo, haddana akoonkiina iska sii adkeeya. marka waxaa jirto barnaamij muhiim ah oo wuu jiray oo xiliyadii hore wuu jiray, laakiin isticmaalkiisa hadday gaaladu bilaabeen, laakiin Soomaalidu badanaa ma isticmaasho. barnaamijkaasna waan idiin soo sheegay, waan idiin soo sharxayaa si janaladiina aad ugu adkaysataan insha Allah. ma rajaynayo in waxa anaga nagu dhacay oo kale qof kale oo walaala oo Soomaali oo muslina inuu ku dhaco. ilaahay ha ka najeeyo. anaguna khayr haddii uu noo yahay Allah noo soo celiyo, haddii uu shar noo yahayna ilaahay ha naga madoobeeyo oo naga tirtiro. sheekada waxaan kusoo gabagabeynayaa Soomaali oo idil waan arkay inta ila soo xiriiray. waxaa laigala soo xiriiray WhatsApp-kayga, Instagram-kayga, Facebook-ga, meel walba laigala soo xiriiray. kommentiyada muuqaalka adna heena aan soo dhignayna waan arkay. maadaama aan qof walba si gaar ugu jawaabi karin, haddaan rabaan inta inaan idinka iraahdo waa mahadsantihiin sidaad nala damqateen, waa mahadsantihiin sidaad nala dareenteen dhibkii dhacay. insha Allahna wax walba ilaa agtiisay ka qoran yihiin, laakiin waxaan rajaynaynaa in ay dhanka fiican u baxdo hadduu ilaahay yiraahdo. qof walba ila soo xiriiray, qof walba message ii soo qoray, qof walba isoo wacay, iyo qof walba niyadda nagu hayo oo ka xun wixii dhacayna waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. ilaahay khayr ha idinku